waxaynu wadaagi doonaa 8 fursadood oo qaali ah oo aynu haysano maanta sikinadan aynu wada hadlaynana aynu haysano qodobka koowaad waxaynu haysanaa fursadda ah inaynu caafimaad qabno ilaahay waxayna siiyay caafimaad saacadan aynu wada hadlayno caafimaad dhamaystiran baynu haysanaa kama midnihiin dadka kumanaanka kun ee qof ee hadeer jiifa cisbitaalada ee oxygen-ta ku xidhan tahay ee caafimaadkooda uu khatarta ku sugan yahay sidoo kale kama midnihiin malaayiinka qof ee maanta qolalka emergency ee cisbitaalada adduunka ku jira ee muxuu ahaayay caafimaadkooda uu khatarta u yahay sidoo kale kama midnihiin kumanaanka kun ee qof ee maanta geeriyooday dhammaan daafaha caalamka oo dhan ee qaar xabaashoodii imika laga soo dareeray qaarna imika geeridooda la sheegay qaarna muxuu ahaayay xabaashoodii lagu guda jiray la qodayo waa nimco iyo fadli uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyay weeye fursadda labaad ee aynu haysanaa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ina soo gaarsiiyay inagoo caafimaad qabna bishii Shabcaan gaar ahaan bartamihii bishii Shabcaan oo maanta waxaanu ku jirnaa 14 bisha Shabcaan taasina waa fursad qaali ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inagu sugay cid kasta oo sooman oo maanta ka faa'iideysanaysana ilaahay muxuu ahaayay waxay rabbi ka dalbadanay ilaahay ha fududeeyo fursadda saddexaad waxay nagu soo fool caawa 15 bisha Shabcaan waa habeenkii 15aad ee bisha Shabcaan waa habeenka aynu fadligiisa ognahay waa habeenka aynu ognahay ee rasuulkuna inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam in la rafciyo dhammaan acmaasha bini'aadanka in la rafciyo oo uu yahay habeenka la rafciyo habeenka 15aad ee bisha Shabcaan waa caawa oo Jimcaha qodobka afraad caawa waa habeen Jimcaad waana habeenkii 15aad ee bisha Shabcaan waxaanu kaga faa'iideysan karnaa qodobka shanaad waxaanu kaga faa'iideysan karnaa fursadda in haysana caawa Jimcaha oo Shabcaan ay 15 tahay inay quraanka aad u akhrino inaynu quraan akhris la nimaadno waxaanu kaga faa'iideysan karnaa sidoo kale inaynu ilaahay barino oo arrimaheena aynu ilaahay u bandhigano oo aynu ducaysano oo caafimaad aynu ilaahay ka barino oo wax allaala wax kasta oo muxuu hayno u baahanahay ilaahay aynu ka barino oo naarihiisa iyo bilaayooyinka adduunka meeraya aynu ilaahay ka nabadgalno aynu u baahanahay sidoo kale habeenkaas caawa fursadda kale aynu haysanaa waxa weeyaan in aynu salliga nabiga badino sallallahu alayhi wa sallam inagoo og fadliga nabigu muxuu ahaayay muhiimadda uu leeyahay iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay iyo waxa lagu helaba qodobka 8aad ee u dambeeya habeenkan 15aad ee soo socda waa habeenkii uu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam waxa la rafciyaa acmaasha rafcinta acmaasha inagoo ka faa'iideysanayna acmaasheeni ma waxaanu ku soo khatinay inagoo oo aan soomanayn mise waxaanu ku khatinay inagoo ilaahay cibaadeysanayna oo sooman oo ilaahay baryayna oo acmaal wanaagsan iyo amal wanaagsan la iimaanayna oo dhikri iyo quraan akhris iyo soon iyo salliga nabigu ay isu raaceen taasina waa fursadda 8aad ee aynu haysano markaas walaalayaal 8 fursadood ee aynu haysano ma hubna inay nagu soo noqon doonaan ma hubna inay sanadka dambe inay soo gaari doonaan ma hubna inagoo caafimaad qabnay inaynu gaari doono 8 fursadood ee aynu kaga faa'iideysano insha Allah ta'ala